maanta waxaynu u joognaa xafladda la wareegidda kulliyadda jaalasiyaad oo ahayd kulliyad muhiima buqcad aad muhiim u ah istiraatiijigna ah amniga magaalada caasimadda iyo dalkabana wax weyn ka taraysa gacanta hore ugu hayeen walaalaheen Burundi ciidamada AMISOM maantana ku wareegaysa gacanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa guul aynu gaadhnay tallaabo hore oo aan u qaadnay horumar aynu samaynay sidii halkan laga cadeeyay qiyaastii 8 sano ka hor ayay fariisin u ahayd kooxaha nabadiidka oo ay ahayd meel ay ka soo duulaan nabadgelyo darro ka sameeyaan argagax ka fuliyaan waxaan marka ugu horeysa tacsiir u dirayaa qoysaskii iyo qaraabadii geesiyaashii ku geeriyooday ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM gaar ahaan Burundi waxaan leeyahay samir iyo imaan dhammaanteenba ilaahay ha inaga siiyo waxay muujinaysaa kana turjumaysaa maanta inaynu la wareegno kulliyadda jaalasiyaad oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gacanta u soo gasho mar labaad in uu hirgalayo meelna marayo qorshihii amniga qaranku waa hirgelinta iyo taabagelinta tubta amniga iyo cadaaladda oo qayb muhiima ka ah tubaha ay ku shaqeynayso xukuumadda federaalka Soomaaliya. At this important ceremony for the handover of the Shagban Military Academy, at the outset, on behalf of the African Union Chair, President Al-Sisi, the African Union Chairperson of the Commission of African Union, Musa Faki Mohammed, and the colleagues in Addis Ababa and the Commission, I wish to pay tribute to the joint efforts of AMISOM troops and the efforts of the Somali National Armed Forces for making this particular occasion possible. It is their combined sacrifice in search of peace and prosperity in Somalia that has made this possible. We will remain eternally grateful